بسم الله الرحمن الرحيم مدامية حفيز كامتحانات كقرن كادمي وزير كحيانكي عصبان وينغن جوغا نرتا لمان waxaan ku hambalyeynaa ardayda Jumhuriyadda Soomaaliland سنة دكتورية كلا بدو كل maanta oo taariikhdu tahay 12 bishii 9 2022 loogu dhawaaqay markaa natiijada intii gudubtay waan hambalyan leenahay ee guuleysatay inta gaari wada natiijada lagu baasayna insha Allah sanadka dambe aad dadaali doontaan sala sheegay sanadkan 4% baa dugsiyada hoose dhacay dugsiyada sarena 2% iyo bar baa dhacay marka aad bay tirada dhiciddu yar tahay laakiin weli intaas oo naga dhacday ma doonayna inay baasaan baan jeclayn markastana dadaalkay ku xiran tahay waxaan jeclahay dhowr gobol inaan xuso oo natiijadoodu runtii ay doorkan aad u wanaagsanayd iyadoo faahfaahinta riboodka dhammaystiran markaa saxaafadan la wadaagi doono gudoomiyaasha waxbarashada loo dhiibi doono gobol kasta u tegi doono marka gobolada Soomaaliland dhan 14 gobol weeyaan Soomaaliland 14 gobol baan hambalyeynaa laakiin gobolada aan cidba ka dhicin aan ardayba ka dhicin iyadoo tiradu ay yar tahay ardayda oo gashay laakiin gobolka Hawd oo kale hal arday ma dhicin dugsiyada hoose dhace aad iyo aad baan u hambalyeynaa micnaheedu gobolada kale ka wanaagsan ma laakiin arday dhacay ma jiro taasaan runtii ku bogaadeenaa gobolka Daad Mareed oo kale laba arday oo qura ka dhacay gobolka Sool 4 arday baa ka dhacay gobolka Xaysimo oo isna Taleexa hal arday baa ka dhacay gobolada tirada ardayda ka dhacday yar tahay aad iyo aad baan u bogaadeenaa maadaama tiraduna yar tahay gobolka Maroodijeex 9,000 arday iyo 300 baa galay 8,860 arday baa baasay 433 ardayna waa dhaceen marka taas waxay sheegaysaa marka in gobolkaas isagoo tiradiisu badan tahay haddana ay dhicitaankiisu runtii aad u yartay markay percentage loo eego aad iyo aad baan u bogaadinayaa dhammaan gobolada waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu